dhalinyaro waxaan dhahaa ana astaan inii ah aniga ii jeedaan xaalado adag duruufo adag dal adag bulsho adag aan ku soo wax bartay still waan dhaqaaqa ina guuleystaan raba aan wada guuleysano qol baan deganaa qolka aan deganaa ayaan waxa sameeyay sariirtii meeshii ii taalay aan go'aansaday banaanka inaan u bixiyo kadibna aan bilaabo yani sali inta dhigo joodiriga gees ka dhigto agabacdi ilmaha xaafad yarka aan soo qabi jiray waa keenay intaan ilmaha keenaan waxaan jeclaa dadka inaan la hadlo fagaara ka hadalka aad u jeclaa fagaara ka hadalka marka xilligaas meel lagu dhigo ilbaxa ma aysan jirin dhagaxaana inta safo aan ku dhex socon jiray si aan qof dad la hadlaa iska dhigo kulan wanaagsan daawadayaasha Itaal Media meel kasto aad nagala socotaan ku soo dhawaada wareysigan waxaynu ku balaminay Najiib Cali Cosoble waxa uu kamid yahay barayaasha magaalada Muqdisho ee dhalinyaro badan soo saaray haddana wali ku dhex jira xirfadda waxbaridda laakiin arinta ugu muhiimsan ee aanu u balaminay ee aanu wareysigan ugu yeernay isna uu nooga aqbalay Najiib waxa waaye waxbaridiisu waxay maaragtay saameyn ku leedahay baraha bulshada oo mararka qaar kood xitaa falcelin ay ka timaado sababtu maxay tahay maxaa keenay in Najiib wax sharaxidiisa ay badana dadku ay aad u daneeyaan inay wax ka yiraahdaan Najiib uu soo dhawow marka xiga waxaan rabaa si kooban inaad maaragtay casharo bixisid oo aad bare noqotid goorma bilowday ما شاء الله أويس وكله برامج قروح بدن إيطال ميديا وأنا برامج قروح بدن أو رئيسية بدن اللي أركي تيله هرقصي وضع إني لا هاي أنا جا صاحدا وحبرستا وحنقصه بير وقت آد وفك أنا إسكول لجنا معد العمرة وحن ليه جري إسكول بريفة ده معد كسويحيان هذا قلبت مركز كصوب بحو يعني بريفة تجا بريفة مركز كصوب قاتو هذه سديس عمل رادل كيالي الأمة اللي يجري بريفة كستي يجري سفرية وايو حتى قف صوماليا وطن كحكوبرتي وحاجرته هاي صوماليات أنا أقونين وحسلو قرا لون أقريو وحاجر أبا صوماليات عن سوق كجناع صدو حسابات كي ومان تشقينا إنه فائدة اسكو ملايا لكن قلا وح العق قلدن أطوريسو قلا lacagta kala tagayso xisaabaadka ma yaqaanan marka si free ah waxaan u furna bareefad aniga dhalinyaro kale bareefadkaas muddo shaqeynayay dadkan waxa lagu baraayay waxyaabaha aasiga ah qofka maanta inaa lacag siiso way ka dhamaanaysaa balse qofka hada yani cilmi barto waligiisa ku shaqeysan kara tutorial saxaabi Cabdi Maxamed Ilaahu naxariisto qaacido oo aan ka bartay jirtay dheeso qof kaluun ha siinin laakiin bar sida loo kaluumaysto marka aan marka waxa go'aansaday inta aan awoodi karo xilligaas anoo dhalinyaro ah wax baranayo duruufo iska jiraan ina brevetkas inta bilaawno markii dambana lacag yar inta ku jaaj gareeno kiradii iyo korontadiisa ugu bixino xilligaas soo bilaabay xilli adiga hadda dhowr sano 8 sano 9 adi ila 10 sano ku dhawaad way tahay alxamdulillah dad badan oo ku faa'iideen way jiraan taa marka laga soo tago brevetkaasna marka ani ardayga ahaa anoo class 8 ah dhalinyaro badan oo ku faa'iideen way jiraan qol baan deganaa qolka aan deganaa ayaan waxa sameeyay sariirtii meeshii ii taalay aan go'aansaday banaanka inaan u bixiyo kadibna aan bilaabo yani sali inta dhigo joodiriga gees ka dhigto agabacdi ilmaha xaafad yarka aan soo qabi jiray waa keenay intaan ilmaha keenaan waxaan jeclaa dadka inaan la hadlo fagaara ka hadalka aad u jeclaa fagaara ka hadalka marka xilligaas meel lagu dhigo ilbaxa ma aysan jirin dhagaxaana inta safo aan ku dhex socon jiray si aan qof dad la hadlaa iska dhigo idin markii dambe waa fikiray niyo ma soconayso dhagaxan in la hadlay maxaa xalad dad ma la heli kara dukaan yara markaa gadaayay maama habeertii la joogay oo yaawin jirta ma sha Allah ilaa qaraasiyo oo hadda hooyadeeba ah marka lacag yara inta helay ilmo buwaag inta u soo gaday naanay xanja u soo gaday soo fadhiista dhahay habeen dambe inta in la eg haday imaadaan xanjiinaan midka hal siina laba uga dhigaa markii dhagaxaanti booskoodii dhalinyarada ciyaalka yarka ay galay ayaga ba taja oo bilaabay Soomaaliga ina u xariiqo baro walaahi hadda maanta dadkii ka baxay jaamacadda Jazeera qaar dhigto qaar Daarusalaam dhigtaan ilma adeerkay ku abtiyay dhalay kuwa weertay dhashay ilma qaraabada iyo ilma diriska ku soo saaray alxamdulillah xilligaas aan soo bilaabay muhiimada u soo bilaaban waxay ahayd marka bilaabay qolkaas listi free ilmaha ugu bilaawata ku sheegay markii dambe maamooyinka xaafadda iyo imaadeen wiil kale oo dhalinyaro asna ila shaqeey jiray lacag yaraan ka qaadi jirnay anoo ardaya aan wax soo saar
xagga wax ka soo saara ee imaatay sidii aan ku bilaabay iskuulka macadka markaa dhameeyay din waxaan go'aansaday magaalada shaqo laga raadina dhalinyaro leeyahay wadanka shaqo la'aanta aad u baaxad weyn tahay maadaama shaqo la'aan jirto iskuul aan soo dhameeyay ganacsi inaan galo inaan waxbarasho ku shaqeeyo isbarbardhig iskuulaad badan ay CV geystay meelo badan aan wareegay aqbalka aad baan u yaraa anoo iska si jab yaraa haddana da'dina yareed iskuul markii soo dhameeyay inaan wax dhigana waa rabaa automatically markaa wareegay meelihii la qaadan waay amarka dambe yar Axmed Nuur idaayan hadda abaal ah u hayo saaxiibanaanay iskuul hadda maamulka aan ka ahay asoo jooga u tagay meesha ugu tagay iskuulkaas aan tagay iskuulka markaa tagay waa in la shaqeeyo raba imtixaan iga qaadeen way aqbaleen aqbalaadii la aqbalay oo isii daba galeen maadaama iskuulka xaafadda ku yaalo Najiibna xaafadda degan yahay dhalinyaro xaafadda waa taqaanaa jirdiimaday fadhiisanayaan gabdhahay foodeynayaan dad u weydiiyay marka war Najiib ka warama war ninkan iskuulkiisa macadku ka imaada brevetku aada dhalinyaro xaafad ma yaqaan sidii lagu aqbalay galaaskii kuwa liigay 9 gabdhood ay dhiganaysay waa u tagay grammar u dhigay waa xasuustaa tenniska koowaad way qaateen labaad simple present tense oo bilaabay qaacidadiisa u qoray laba qaacido leeyahay qaacidada marka uu qoray qaabka loo isticmaalo macalinka yaraa ka warama marka dabcan meeshaas ka soo bilaabatay xataa ani goboladan tagay oo seminaaris aan ku soo qabtay noo macalin waxaan jaanis u helay urur dhalinyaro ee dhahayaan hoodhaas dhalinyaro badan oo maanta magaalada ka shaqeysa qayb ka ahayd waa safarnay ilaa waxaan tagnay Dhuusamareeb Gurceel Cadaado Gadoon ilaa gobolaas qof qaraabo ii joogto ma jirto seminaar marka la qabanayay ayadoo seminaarka la qabanayay Bashir Gadoon dhahayaan mowduuc xaliidi how to become successful person waligay 200 qof ma hortagin dad waxay dhaheen Soomaaliyeena waxa waaye sidee ku noqon kartaa qof guuleysta dabcan anoo la weydiiyay 200 qof hortagin haddana jaamacadii markii bilaaw ku ah hal sano dhigtay ninka la soo jeedinayna conflict management lagu qoray master oo ah dhalinyarada qaar marka Soomaalida adoo hada dhaqaaqaysid wax kugu dhagama weynaysid dad qaar waxay dhaheen Najiib ninka wax kula soo jeedinaya ma taqaana waa master degree adina baaji hadda ku socoto waa laga waala dhiiqa galoosa dadka reer gobol waay warkooda dhagjala ma quusinin waayo nin meel oo cadahay meel ka mid oo Soomaalida dhaxda lagjarkii qabtay inta dhalinyarada meesha lagu cusbaa magaalada iska aadayeen ani magaalada ma aan aadeynin dhiirigelin iyo guul marka laga hadlaayo waxaan aad ugu xiranahay ilaa qiraasiyo Sheekh Mustafa guula ka hadlay 10 aan dhageystay slideska aan diyaariyay waqti galiyay laba habeen diyaarinayay juhdi ku bixiyay anoo information buuxa wado aan meesha la tagay macalinka iga hormaray mowduuc labaad qaatay wallahi dadka maanta meesha ku soo bartay video uu gaari doona waxaa dhacday in aad lagu qanco saaxada dhiirigelinta meeshaas ka soo galay waa imaada Muqdisho barnaamijka la qabtay barnaamijka isku aasiis sameeyay ana waxaan baara marka sidee yani dadka in la dhiirigeliyo meel laga barto Soomaali ma jirto see ku sii sameyn kartaa YouTube kan galay muuqaalo dhiirigelin badan daawaday koorsooyin online raadiyay marka saaxadeeda waxbariska iyo dad ina hortago meeshaas ka soo bilaabatay ilaa heer aan gaaro marka dambe wasaaradaha dalka wasaarad kamid ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ina isla qaban iyo xarun aniga aan joogo hubaal idhaayaan inay seminar isla qabtaan lagjarka aniga iyo macallin kobac aan noqonay 2018 ahayd 18 jaamacadda Soomaaliya aan ku qabta panelkiisa xitaa ku soo diri karaa dabcan marka waxyaabaha aan sameeyay meeshaas ka soo bilowdeen waqti iyo juhdi iyo waayo badan aan soo galiyay waa aad u mahadsan tahay si qurux badan oo la fahmi karo ayaa dabcan uga sheekaysay waqtigaaga iyo geedi socodkaaga dhinaca waxbarista waxa aad dadka bartid maadooyinka yani oo adiga sida khaaska ah dadka u hor istaagtid dhiirigelinta koow maxaa kale ku raaca ma sha Allah ani jaamacadda DSU ama Darussalam University ka soo baxay waxaan soo bartay maamul iyo maareyntaas aan soo bartay jaamacadaha dalka jaamacada kamida wuxuu uga dhigaa labo marka la joogo iskuulaadkana luqadda Ingiriiska iyo businesska iyo waxyaabo la xiriira amara mostly laakiin maamul imaareen iskuulka maamula ka ahay maamul waa dareemi kartaa arday mar xalina mar waalida soo booqanayo mar information laga raawo ma badna xiisada badana iskuulka ma ka dhigo laakiin wax badan oo soo dhiga luqadda Ingiriiska iyo businesska iyo maadooyinka soo dhigay dhiirigelinta marka sidee u qabataan ma wax
koorsooyin oo taxana ah miya mise waa seminaaro caadi ah oo waqtigii ay idinka qabato maya ma jirto sida dhiirigelinta waxaan u sameynaa qaab professional ah waxaan sameynaa bishii hal seminar qabtaa dad kooban oo cayman bas imaado 30 qof ka badan ma jirto mararka qaar 20 qof 20 kaas qof waxa la baraa koorso sidee dadka looga hor hadlaa fagaar ka hadal la baraa maalin bay imaanayaan 10 bay qaadanayaan maxaa la fagaar ka hadal muhiimada uu leeyahay tibisk ama talooyinka ku noqon karto qof fagaar ka hadalkiis guuleysto maalinta kale markuu imaado practice isku dayaal aha maalinta kale waxa la baraa sidee loogu guuleystaa cabsida dadka inaa ka hor ka hadasha ka taagan 75 dadka kamida boqolkiiba inay dadka la hadlaan way ka cabsadaan marka fearka waxa laga soo gaabiyay cabsida waa falso evidence appearing real waa humaag beeno dadka u sawiran laakiin qofkii wuxuu u maleynayaa xaqiiq dadka markuu hortago humaaga u sawirmaayo dadkii ka cabsanaa wuu ku cusbiyaa barnaamijka wuu dhididaa wuu jareena dars in loo training gareeyo u baahan tahay marka ayadii aan dadka u training gareena maalin 10 asina maalin practice asina maalin 10 maalin dadka maanta ka baxay magaalada qaara ka shaqeysto qaara maanta ku foosay dabcan alxamdulillah koorsasna waa bixina koorsooyinka kale aa bixin waxa kamid ah sida waqtiga loo manage gareeyo sida qofku uu najixila ama u guuleysan lahaa sida hal abuur qofku u yeelan lahaa way badeen waxyaabo psychological la xiriiro dabcan koorsooyin isku xiran waaye waqtiga dhow oo mustaqbalka insha Allah waxa rajeyn doonaa muddo soo socotaba xarun skill lagu barto oo insha Allah inaan ka sii dhigno oo meel u sii sameeyno hadda iskuulka iyo jaamacadaha ku dhex dhignaa muslim marka ay barnaamijyada aan qabano xiligaas soo bilowdeen dhiirigelinta nasaas oo sameeyna hatta anaga dhiirigelinta marka sameeyna maybe ina social media ku aragta anoo caagsan u hayo dabcan this hadda waa airboards inta ku jiro airboards kan nin macaan la tahay wax badan fahansan san hadda u qabatid dabcan hal daqiiqo haysid hal second hadaa haysid 2 daqiiqo hadaa haysid 3 daqiiqo hadaa haysid hal saac hadaa haysid gacantaada maxay noqonaysaa waa kawaabiyone ama waa daaleysa dars it hada iska dhiga ka waran gacanta maxay dareemay nafis dareemay mostly muqdisho dhibaatooyin badan ka jiro qofku waxa macquul inuu aabihi waayo inuu hooyadii waayo waxa macquul shaqo la'aan inay hayso waxa macquul dhacdo baastiyo ka soo tagtay inay qalbigiisu ku qufulan tahay oo ka dhaqaaqi lahayd marka dadku waxaan dhahnaa culeysyada tagtada ah iyo hadalada khilaafsan ee dadku ku dhahayaan oo kuniyo jibinayo iska daa ka soco sida iskaga dhigta outboard iskaga dhig dala socda hore u dhaqaaq waayo shalay way tagtay shaladii tagtay wax ma ka bedeli kartid aabahaaga dhinta ama eedadaada dhimatay ma soo celin kartid shaladii ka tagtana ma soo laabanayso laakiin maalin walba cusub waa fursad cusub oo kale ee noloshaada wax uga bedeli kartid hore dhaqaaq sameey iska dhig dhacdada oo baasiga ah hadalada dadka ku dhahayaan ku niyad jibinayo ka soco waayo bari hadii dadka maanta ku niyad jibinayo marka bari guuleysatid ayaga ayaa garbaha soo istaagi doono ku dhihi doono shalay marka guuleysanaysay garabkaagan aha ma aha ka shalay ku niyad jibinayo guushaada waan sugeynay guushaada garban waqtiga ka soo siiyay marka guuleysata ayaga ku saxbin doono marka baastiga iyo hadalada xuntaba forget move on aqaaqa dadka dhahna mustalina waa wax loo baahan yahay geedka markuu koraayo biyo in lagu shubo u baahan yahay soo u koro qofka bili aadankana wuxuu u baahan yahay in la motivate gareeyo laba shay jirto in driving iyo out driving ajiro qofka in banaanka dadka xayaan u dhiirigeliyaan ama inuu gudaha ka dhiirigelsan yahay marka mostly in driving ka waa qofka inuu asaga is dhiirigeliyo out driving kana waxay ka imaanaysaa hadal oo qof ku dhahay inaa ku dhiirigeliso ama soo dhiskaba waa mid gudaha ka imaad iyo mid gabadha ka imaad marka mostly dadka anaga waxaan ku guwaabinaa aan tusnaa inay guuleysan karaan dhalinyarada waxaan dhahaa ana astaan inay ah aniga ii jeedaan xaalado adag duruufo adag dal adag bulsho adag aan ku soo wax bartay still waan dhaqaaqa ina guuleystaa raba aan wada guuleysano marka dadka inay ku fahmaan qaar way imaanaysaa qaarna ma ku fahmaan hadda dhiirigeli caana jiro maxamed cumar lahaayo markuu waxaan soo bilaabayay dadka ma aysan fahmi jirin way dhaliili jireen waxay dhihi jireen macquul maahan saan maanta u jeedaa meesha maraayo marka wax walba bilaabo way dhib badan yihiin